dabtano gadam ya dishan tamalkiyo dirti so dugson mariranda wadi saudare mamale دارسني ماذا يدن تقود لتشيرك قبيل كضوضة لو قديقو يندقى لي يعلل لقود دقدقين باكميدين أنت وبي وركينا ما يصدرتان هادي داريس كي يدادك ياغوس قبطان او دقيقة قول الدارق يا ذا الله حلو سانو ديغانو ناي دبالو مشيدو dhaantada wardoon waxay ku timid oo silsilada ku bilaabatay dareen aniga igu jiray cali ahaantayda ah oo wadankii maadaama ay muddo hore igu dambeysay sidaas ay ku bilaabatay horta si sax ah oo dareenkayga ka tarjumaysa ay ku bilaabatay dhaantada iskamaana ay bilaabanin oo ma wax iskinta ma ahayn jacayl aanu qabay wadankii iyo xiisa aanu qabay boholiyo jira daltabyo maxaan ku raadayay inaan wadankii tago inaan jeclaan lahaa inaan u xiisay markii muddo aan ka maqnaa sidaa daraadeedna maanta maaragtay xiiso iyo jacayl aan u qabo wadankayga inaan aado ama joogo darteedu baa iga keentay marka sidaa daraadeedba waxaan isiri bal suugaantu waa meelo badan tahay bal waraysi u dir horta bal nimankii wadankaaga dambeeyey bal warayso oo u dir in maaragtay soomaalida walba war ku nool bayada waraysigu waa la iswaraysan jiray marka bal waraysi u dir baa isiri saasan iyo dhaantada ku bilaabatay waxaan ka mid ahaa fanaaniintii ka jawaabtay dhaantadii wardoon ee saaxiibka cali dhaanto silsilada dheer noqotay dhaantada sababta aan uga jawaab waxay u kalifay kow waxaan ahaa dadkii su-aasha la soo weydiiyey ee deegaanka ku sugnaa ahaana dadkii fanaaniinta ka mid ahaa maadaama fanaaniintu yihiin codka bulshada marka waxaan jeclaystay inaan ka jawaabo waxaana uga jawaabay saan markii islahaa su-aasha markuu na soo weydiiyey waxyaala badan saaxiibka cali dhaanta la soo weydiiyey oo deegaankii maxaa lagaga jiraa saboolkii ma laga baxay ma dalxiistaan waxbarashadii ka warrama marka sidaan u arkayay markii inuu deegaanku yahay anigoon dawladdii dhaliilaynin difaacaynin shacabkiina eedeynaynin suux markii aan islaa wax ugu jiraan yar uga jawaabay marka dhaantadan ka jawaabay laba qalcadood oo kamid ah dan la wadaaga labada qalcadood ee dadka in badan oo kamid ah soo weydiiso dadkuna waxa markay fahmi waayeen wixii uu sarbeeb yahay suu qofkii u arko iyo u fahmaya labada qalcadood ee mataqaanaa ay u soo noqday dad badan soo weydiiyeen waxay ahaayeen qalcadi waxay ahayd dhankii dawladda u dadaal weyn ka jiro shacabkiyo istiiliyoon dantooda gar wayba uga dartay xoor u daansho la yiri dadku markaa qalcadda halka u dambaysa wayba uga dartay xoor u daansho la yiri bay dad badan oo kamid ah soo weydiiyeen ma dawladdii ba uga dartay baa la yiri marka ma anagu dawladdii inay dadaalayso waan sheegay laakiin shacabka inay xorriyadul qowlka ka faa'iideysanaynin oo qabiil ay isu qabsadaan iyo dhul ay isku qabsadaan iyo waxa ay ku mashquuleen marka qalcadaas saasay ahayd waan sugayay in laga soo jawaabo dhaantada laga soo jawaabo waan sugayay sababtoo ah warku waxa uu leeyahay war celis markaad wardoon tahay hadda waa inaad war celis hesho oo akhbaar lagu soo siiyo meelaha taabatayna lagaaga soo jawaabo waxaa taabanaysa maaragtay bal dadka lagu wacyigeliyo la yiraahdo dadkeenu weli saa uma bislaanin laakiin waxaan rajaynaynaa inay bislaadaan waxaan ay fahmaan oo maaragtay qabiiladu ay ka baxaan oo qaran loo gudbo oo dadka hawshaan weli dadaalkeedii baa la wadaa ayaa sugayay sidaa daraadeed ba waxaan ugu celiyay rundawara meelaha qaarkeed oo ku iri maaragtay waxyaale aan ogahay anigu ayaga isku daray waxyaale aan ogahay soo sidii ma aha marka taasaa rundawara keentay marka raggii anoo yar taabanaya waxaan ku iri raggan dacarta malab dusha kaaga shube hee qabyaaladiin afku dabar jaro warkiyaadso tirtireen qayboyiga ma degin markaasoo micnaheedu ahayd warkii aad iisoo dirteen qaybo ayaan weli iga degin niman yahow dhaantadan silsilada noqotay uu saaxiibka cali dhaanta bilaabay ee wardoon aad baan soo dhaweynayaa waxaan u arkaa silsilad qurux badan horey uma arag silsilad dhaanta dhaqameed ah oo dadku isweydaarsanayaan heeso iyo gabayo waan arkay markaa wax dhaqankiina ku saabsan la iskuna xog wareysanayo aad baan soo dhaweynayaa fanaaniin badan iyo abwaaniin badan baa ka jawaabtay nin walba fikirkiisa iyo aragtidiisa kaga jawaabay